Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ummadda Soomaaliyeed meel walbaad joogtaan akhyaaray ku soo dhowaada janaliskeena kale ah caynta show ee Cati Media. Fadlan haddii aad nala joogtana sii shargaree, haddii kalena walaalayaal nagu soo biira. Maanta waxaan hadda halkan ku qaadan dhigaynaa qodobkeennan maanta ay bishu ay tahay 17 bisha Janaayo 2022 maalinimo Isniina amintuna ay tahay 1 duhurnimo. Waxaanu halkan maanta rabnaa inaan qodobkeenna maanta aan ku qaadan dhigi doonno wuxuu leeyahay waxaan hubnaa oo maaragtaa la ogyahay cid walba Soomaaliyeed ay ogtahay in baarlamaanka golaha shacabka ama aqalkii sare lasoo doortaba dhammaan inay maaragtaa qaab sifo sharci darraha ay ku fadhiyaan ama ay ku yimaadeen ama ay ku tartameen annagoo og markii lagu tartamayo tusaale ahaan Garowe oo kale in maaragtaa malxiis la keensanayay nin walbaba malxiiskiisa uu keensanaya si maaragtaa haddii la kurin aan loogu xiriirin ama maaragtaa waxa loo yaqaanay waraabo utaag qof ah in la keenayay hadba si maaragtaa kursiga si sahlan ama cidda la rabo si fudud in loogu fariisiyo. Waxaan ognahay ninka la yiraahdo Siciidan inuu yahay musharax dadban haddii la kurin yahay kuraasta aqalka sare 12 kana hal maalin ayuu ku boobay maadaama kuwa kale ay maaragtaa dood boobistooda ay xataa maaragtaa maalmo ay qaadanaysay iyagoo sariiganaya ama qayb ka mid ah xataa siinayay maaragtaa haddii la kurin yahay mucaaradka. Tusaale waxaan usoo qaadan karnaa nimanka maaragtaa dowlad goboleedka deriska la ah ee Galmudug waxay soo doorteen 8 xubnood. 8 xubnood qaybna waxaa la siiyay mucaaradkii cid walba way ogtahay, qaybna waxaa qaadatay maaragtaa asxaabtii halkaas geysatay uu farmaajo madaxda u yahay. iyagoo maaragtaa haddii la kurin yahay dadkii aan qaybna aan qadin qaybna aan maaragtaa haddii la kurin yahay aysan iska cantoobsan ayay maaragtaa Axmed Qoorqoor ninka hogaamiya Galmudug uu sida ugu kala qaybiyay. Haddaba Siciidan oo haddii la kurin yahay mucaaradka gobolka Banaadir nimanka hawiyaha u badan ee Hotel Aljazeera fadhiya ayaa maaragtaa waxay wateen haddii la kurin yahay maaragtaa hubka waxaan ognahay inuu hub iyo maaragtaa uu keeno culus halkan si ay maaragtaa magaaladoodii ama caasimadii ay lahaayeen ay dagaal uga ridaan. ninka la yiraahdo Siciidanina maaragtaa haddii la kurin yahay uu yiri waa idin garab taaganahay dagaalka rida. markii la gaaray in golihii maaragtaa aqalkii sare la soo doortana 12 xubnood oo ka tashay shaar isaga leeg maaragtaa hal xubin qurana aan siin nimankii maaragtaa uu dagaalka geliyay uu yiri magaaladiina iyo gurigiina guba nimanka uu yiri maaragtaa haddii la kurin yahay haddaba qodobkeena wuxuu yahay haddii la kurin wuxuu daaran yahay nimanka la yiraahdo Siciidan oo u socda golaha shacabka inuu boobo hase ahaatee ma golaha shacabka guud ahaan uu boobi karaa maya dabcan ma boobi karo kumana dhaco kuraasta qaarkood inuu u dhowaado xataa maaragtaa Puntland waxaa dhistay maaragtaa haddii la kurin yahay hartiga lagu sheegayna waa maaragtaa haddii la kurin yahay waa dhulbahantaa nimanka la yiraahdo iyo warsangeliga iyo majarteenka. Haddaba waxaa la boobayo waxa weeyaan waa kuwa dhulbahantaha kuwa majarteen kuwa la yiraahdo warsangeliga iyo qaybo yar oo ka mid ah maaragtaa haddii la kurin yahay majarteenka iyagoo halka ku socda inay boobaan oo doonaya maaragtaa haddii la kurin yahay inay maaragtaa sidoo doono uu ka yeesho cid asaga maaragtaa u guul wadaynaysa sida farmaajaba u soo saarta ayuu doonaya inuu asagana u soo saarto maadaama musharax aan isku kalsoonayn uu yahay. taasna waxaa la dhihi karaa xilli hore ayuu ku dhawaaqi lahaa hadduu isku kalsoon yahay sida dadka kaleba ay ugu dhawaaqeen. maaragtaa halkaa markay joogto waxa la boobayahay waa soo sheegnay hase ahaatee kuwa la boobayn waa kuwa Maxamuud Saleebaanka ay leeyihiin. waxaan ognahay maaragtaa haddii la kurin yahay xildhibaanada qaar in jaabo xilli horeba la xiray oo rag u xiran yihiin oo la taaban karin qabiilada qaarkood halka kuwa kale maaragtaa haddii la kurin yahay xildhibaanada ay leeyihiin tumaniyada ay leeyihiin dhulbaantaha iyo 8 ay leeyihiin nimanka la yiraahdo haddii la kurin warsangeliga iyo nimanka wax kuwa kale soo raaca sida maaragtaa nimanka la yiraahdo leelkasaha oo kale ama Arab Saalaxa dadka halka degan oo tirada badan xildhibaanada markii laga soo reebay Maxamuud Saleebaanka inuu si sahlan u qaadan karo ayaa halka ka cad si maaragtaa maadaama ayaguba maaragtaa dad naf leh oo wax iska celinaya aysan ahayn oo halkaana ay ku dulman yihiin
oo maaragta hadduu alla ku roon horena usoo sheegnay xubintii maaragta ay golaha ay ka heshay maaragta nimanka la yidhaha dhulbaanta ay ka helaan guddigii hadduu alla ku roon yahay doorashooyinka ee heer federaal ama dowlad dhexe ee ninka ciro la yidhaha ay kasoo jeeda uu maaragta uu ololeeyey oo xilka qaadista uu qayb ka ahaa Siciid Dani isagoo soo saara meesha nin majeerteena. waxaan ognahay maaragta in halkaa waxaa ka cad qof walbaba wuxuu qiyaasi karaa in maaragta meesha aan la wada lahayn, hase ahaatee waxa la boobayo ay yihiin kuraasta maaragta hadduu alla ku roon yahay qaybahaas kale ay hartiga iyo daaroodka kale oo meesha deganba maaragta in maaragta loo socdo boobkooda. doorashada Garowe waxay ka dhici doontaa xerada 54 meesha leeyahay Puntland lagu aasaasay maaragta hadduu alla ku roon yahay waa qayb meel cayiman oo aad iyo aad u adag oo waxa lagu sheegay xataa maaragta nimanka la yidhaha maaragta dambi baaris waxay ku tilmaameen in majeertoonka Garowe u fadhiya xafiisyadooda in xafiis looga sameyn doono si dadka ay usii kala soocaan maaragta qaybna loo yiraahdo dambi maaragta qaybtii loo maaragta markaa la rabo in aad loo sii reebo la yiraahdo dambi baa in ku furan ama dambiyaal aan micno lahayn ama warqadda xataa aan la siin maaragta hadduu alla ku roon yahay halka marka 10kaas kursi qayb ka mid ay leeyihiin maaragta dhulbaantaha iyo qeybaha kale sida majeerta nimanka la yiraahdo warsangeliga oo kale in lagu boobi doono ayaa markaa ka cad. kilibkeennii maanta intaas ayaan maaragta kusoo gabagabaynaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.